السلام عليكم وعلى السلامة dhammaan inta tv-ga daawanayso astaan ubad caruure waa idin salaamay maxaan idiin soo celinahay barnaamijkeena quruxda badnaa oo aadka aad u jecleedeen oo sheeko caruure sheeko aada u qurux badana maanta idin wadaa sheekada aan maanta idin wado waxay tahay waxaa jiri jiray laba islaamood midna ee midaan waxba haysanoo faqiira ay tahay midna waxay ahayd islaam taajirada midda faqiirada ah waxay lahayd hal gabar midda taajirada ahna 7 gabdhood ayay lahayd marka waxaa dhacday tii faqiirada ahayd in ay wax un faa'iido ka raadin jirtay saabuun waxay ku ridan jirtay saabuuntaas baaquli ay ka samaysatay geedka qumbaha waa iska qaadan jirtay saabuunteeda ay ku ridan jirtay suuqaas iskala aadi jirtay maalintii wixii ay ka soo heshana gabadheed yartay intee wax ugu soo adeegato ay u karsan jirtay hadda maalin walba say suuqa sida u soo aadaysa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah maamadii in ay suuqa imaato saabuunteeda ay keento waxay fadhiso inay wax ka iibsado weyso saabuuntii wax ka iibsado ayay weysa ilaa habeenkii ku gaartay danta waxay ku kaliftay meesha inay iskaga soo istaagtay inay cid wax ka iibsanaysa ma lahan way soo baxday gurigeeday timid saabuunta iyo baaquliga hadday iska dhigtay cunugta waxay cuntay rabtaa oo ku oynaysaa way baahan tahay waxay siisatana ma haysato waa islaan masaakiina oo waxba haysan way fakirtay waxay soo xasuustay islaan dariskeeda ah oo taajirada wax haysato inay u tagto way soo baxday islaantii u timid islaantii waxay ka codsatay wax kaliya ay cunugtaas siisato oo baahida uga oynayso islaantii waxay soo siiday iska dhaafay aflagaado ay ugu dartay gabdhaheedana aada u soo xumeeyeen way soo caayeen way soo buriyeen islaantii bannaankay u soo saareen bannaankay uga daba imaadeen oo dadkao dhan ay maqashiiyeen maxaa u malaynaysaa anaga inaan kuu baahan doono adigoo faqriya adigoo waxba haysan kuuma baahaneen islaanta way iska aamustay iska soo baxday markay iska soo baxday gurigeedu usoo socotay waxaa ka hor imaaday islaan ay marka hore markay fiirisay garan weysa markii ay usoo dhawaatay waxay ogaatay in ay walaashay tahay oo magaalada ka timid waxayna u daraajin aada u fara badan iyadii walaasheed waa isa soo raaceen guriga imaadeen waxay uga sheekaysay dhibaatada qabsatay iyo sida loo soo galay dhib ma lahan ay tiri waata ilaahay kaa irsaaqee raashinkoodii iska karsadeen gabadheedii ay siisatay iyadaa iska cuntay waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah islaantii taajirada ahayd inay xanuunsato hadday xanuunsatay ay jiratay daaweyn loo soo qoray daawooyinkaasita waxaa la yidhi waxaa loogu shubi karaa oo loogu qasi karaa baaqule geedka qumbaha ka samaysan magaaladan waxa istaba waaba yaryihiinba ama maba leh islaantii masaakiinteeda oo faqiiradeed waxay saabuunta ku ridan jirtay oo ay samaysatay geedka qumbaha ka samaysnaa wayna ogyihiin gabdhihii soo aflagaadee oo kasoo buriyay gurigooda way fakireen yaan ka doonan karnaa yaan ka raadsanaa way fakireen war walaalayaal islaantii geed baaqoliga geedka qumbaha ka samaysnaa haysatay oo miskiinta ahayd ee see loogu tagay islaantaas si xunaa u galnay waxba ma aynaan siinin waan burinay dhibaato weynaa ku sameynay ma loo tagi kara islaantaas uma tagi kara naga dhaafo abartii way darsatay xanuunkiyaa kusii siyaaday hadda hooyo hadday xanuunsan tahay wax walbaa sameynay danta waxay ku kaliftay inay soo baxaan ay islaantii u imaadaan gabdhihii wayse soo raaceen 7 gabdhood islaantii u imaadeen way baryeen waxay dhan hooyadan anaga xanuunsan baaquligana sii daawaa loogu qasaayo way u diideen weliba gabadha yareed oo usoo diiday manayna siinaayo tiri gabdhihii danta waxay ku kaliftay gurigooda inay iska aadaan kadibna dariskooda ayay u imaadeen islaamiya dariskooda waxay dhaheen dhibaatadaasaa nagu dhacday hooyadan way xanuunsantaa baaquligaas geedka qumbaha ka samaysan ay u baahan tahay in daawada loogu qaso islaantaasna way noo soo diitay dadkii dariska ahaa ilaan dariska mar walbo waxay ka shaqeeyaan inay dadka kala maslaxaan way soo raaceen waxay ugu imaadeen islaantii faqiirada ahayd gurigeeda waxayna ku dhaheen maxaa dhacay islaantan dariskaaga ah oo xanuunsan baaquligaas inaa siisid oo dawada loogu sameeyo waxaa ugu diitay waxay uga sheekaysay islaantii faqiirada ahayd dhibaatadii ay u geysteen iyo wixii ay kusoo sameeyeen iyo sidai ay ugu aflagaadeeyeen dariskii way garaysteen gartina waxay siiyeen islaantii faqiirada ahayd oo masaakiinteed waxay dhaheen adiga maxseed wax u rabtaa way u sheegtay waxay tiri haddaan baaquligan dhiibaayo hantidooda kala bar waa inay siiyaan ilmihii waxay dhaheen hantidaan kala bar ma dhiibi karnee see tala ah
hadda idinkeeda intaa laa ilaha ama hantidiina kala bar dhiiba ama hooyadiin ha idinka jirto ama saaha ku dhimataa dee rabtay idinkaa istikhyaarka iskale hadda hooyadooda ka xanuunsaneeda danta waxay ku kaliftay hantidooda kala bar islaantii masaakiinta ahayd in ay siiyaan ayagana baaquligooda soo qaataan hooyadood ay ku daaweystaan ay daawada ugu qastaan marka caruure sheekadan maxaad ka baran kartaan sheekadan waxaad ka baran kartaan qofka dhibaataysan oo masaakiinka ah in aan lagu jeejeesin in aan la aflagaadayn haddii adiga ilaahay wax ku siiyey qofka walaalkaa ah hadduu baahan yahay haddii ay dhibaato haysato mar walba garabkiisa inaad istaagtid oo aada caawisid qofka maskiinkaa mar walba maxaa ballan noo ah in aan lagu tiigsanin